Iran ayaa xalay dhul ka dhigtay saldhiggii ugu muhiimsanaa ciidanka Mareykanka ee ku yaalay dalka Jordan. waxaana si gaar ah u beegsatay Iran xalay saldhigga ciidamada cirka Mareykanka ee ay yaalaan diyaaradaha dagaalka F-18. waxaan ku hayaa wararkii ugu dambeeyay iyo dharbaxada gaartay ciidamada Mareykanka ee Jordan iyo dowladda Jordan oo lagu waramaya hadda in xaaladdu ay ku adag tahay. qodobada sidoo kale barnaamijkan idinku heenayana waxaa ka mid ah Iran ayaa mar kale sidoo kale weerartay weerar ballaaran ku qaaday dalalka Carabta oo ay ka mid yihiin gaar ahaan kuwa Khaliijka, Bahrain, Imaaraadka Carabta. waxaan ku hayaa wararkii ugu dambeeyay iyo weeraradii xalay bariga dhexe ka dhacay. qodobada sidoo kale barnaamijka aynu ku eegi doono waxaa ka mid ah Trump ayaa sheegay in isbuuca soo socda uu yahay kan ugu adag Iran laga burburin doono kaabayaasha dhaqaalaha iyadoo xalay weerar adag Mareykanku ku qaaday gudaha dalka Iran. waxaa socday isdhaafsiga weerarada iyadoo qaar ka mid ah dalalka Khaliijka Iran ay ugu yeertay in degdeg ay go'aan uga qaataan saldhigyada Mareykanka ku yaala dhulkooda. qodobka ugu dambeeyana waxaad ku maqli doontaa ciidamada ilaalada kacaanka Iran ayaa ugu yeeray Jordan inay degdeg uga saarto Mareykanka xirtana saldhigyada uu ku leeyahay dalkeeda iyadoo taa beddelkeeda Iran ay sheegtay in Jordan ay heli doonto amni iyo nabadgelyo. aynu ku bilowno weeraradii Iran xalay ay ku qaaday gudaha dalka Jordan ayaa la sheegay inuu ahaa kii ugu ballaarnaa oo ay Iran ka fuliso dalalka bariga dhexe taa oo ay uga jawaabaysay weerarada Mareykanka uu dhulka Iran ka wado. haddaba weerarkan ayaa la sheegay si gaar ah xalay Iran inay ugu beegsaday saldhigga ciidamada cirka Mareykanka ugu muhiimsan bariga dhexe ee F-8 ee yaalaan diyaaradaha F-18. waxaa la arkayay muuqaallo laga soo duubay saldhiggaasi ku yaala dalka Jordan oo Iran la sheegay inay u adeegsatay diyaaradaha aan duuliyaha lahayn droneska. wariyaha Maria Novel ayaa waxa uu soo dhigay bartiisa X muuqaal muujinayay saldhiggaas oo si daran u gubanaya iyadoo sidoo kale Iran la sheegay in ay dhowr goobood oo ku yaala gudaha dalka Jordan ay beegsatay xalay waxaa lagu waramayaa weeraradii ugu badnaa Iran ay ku beegsatay dalalka bariga dhexe si gaar ah inay diiradda u saartay si ka duwan sidii habeen hore. Jordan ayaa xalay ahayd baa la leeyahay qaybta ugu muhiimsan ama meelaha sida weyn ay u beegsadeen ciidamada ilaalada kacaanka dalka Iran. dhinaca kale ciidanka Iran sida Al Jazeera ay warinayso waxay baahisay Al Jazeera waxay xaqiijiyeen duqeyn saakay mar kale ay ka fuliyeen xero ciidan oo ku taala magaalada Bambar in lagu dilay 7 askari oo ka tirsan ciidamada Iran. taa macnaheedu waxa ay tahay ciidanka Iran ayaa war-saxaafadeed ay siiyeen Al Jazeera waxay ku xaqiijiyeen in laga dilay dhankooda 7 askari oo ciidankooda ka tirsan iyadoo warkan lagu sheegay inay Iran weerarkan si degdeg uga jawaabi doonto. 7 askari ee laga dilay Iran oo saaka weerarkii xalay Jordan ay ku qaaday kadib iyadana lagu beegsaday weerarkan gaar ahaan lagu dilay deegaanka Bambar. waxay Iran sheegtay in ay wax aan ka yarayn 7 askari ama ka badan ay ku argudan doonin. taas macnaheedu waxa ay tahay Mareykanka iyo Iran masaafo aad u dheer baa u dhaxayso. waxa la sugaya maahan inay intay Iran hadda baxdo oo ay Mareykan tagto gudaha Mareykanka inay ciidamo Mareykan ku dilaynin laakiin 7 askari laga dilay Iran ee hadda laga dilay ee warkan degdeg ah waxay macnaheedu tahay inay uga aarsan doonto 7 askari iyo kuwa kale oo ku sugan dalalka bariga dhexe hadday ahaan lahayd Jordan, Kuwait, Bahrain, Imaaraadka, Qatar iyo kuwa kale. waayahay saaxiibada qiimiga lahow qodobka markaynu meesha uga gudubno xaaladda Iran iyo Mareykanka oo cirka isku sii shareerayso weeraradii oo faraha ka baxaya heshiiskii MOU-ga oo gebi ahaanba baaba'ay. dhinaca kale haddana dab kale ayaa ka holcaya bariga dhexe gaar ahaan Sacuudiga iyo Yemen. Xuutiyiinta warkii ugu dambeeyay oo ay soo saareen waxa ay sheegeen dagaalka iyaga iyo Sacuudiga inuu xarga goostay oo ay jirin cid wax ka qaban karto. waxa ay Xuutigu digniin u direen dhammaan dalalka bariga dhexe dega ama ku sugan ee ku yaala bariga dhexe iyo ciidamadooda. waxay soo kale fariin u direen guud ahaan dalalka dunida. waxa ay sheegeen cid walba oo la safata Sacuudiga in ay gantaalada ballistic missileska Xuutiga ay ugu imaan doonaan deegaanadooda
iyo dhulkooda. xuutiyiintu waxa ay sheegeen in ay ka go'an tahay in ay soo afjaraan Sacuudiga iyo dowladda ku sugan Cadan ee ay Sacuudiga gacansaarka la leh. xiisada Sacuudiga iyo Xuutiga, Mareykanka ayaa dowladda Sacuudiga lagu waramayaa inuu u soo bandhigay sida Donald Trump uu sheegay inuu garab ku siinayo sidii ay ula tacaali lahaayeen ama ay uga difaaci lahaayeen weerarada Xuutiyiinta. laakiin Sacuudiga ayaa lagu waramayaa inuu arintaasi ku gacan sayray oo uu sheegay in Sacuudiga uu iskaga filayahay ama uu ku filayahay inuu difaaco dhulkiisa. waayahay saaxiibada qiimiga leh qodobka markeen meesha ugu gudubno qodobka xiga barnaamijka. Iiraan wali waxa ay wadaa weerarada ka dhanka saldhigyada Mareykanka uu ku leeyahay bariga dhexe, taas oo looga jawaabayo weerarada Mareykanka uu ka fulinayo gudaha dalka Iiraan. Iiraan mar kale waxay xalay fulisay ilaa iyo saaka weerar ballaaran. waxa lagu waramayaa marka laga soo tago Jordan weeraradii kale ugu badnaa inay ku dhaceen Bahrain iyo Imaaraadka Carabta, iyadoo Imaaraadka lagu waramayo in seeriga dhawaaqa digniinta bixiya qaybo badan oo Imaaraadka kamid laga maqlayay, iyadoo mar kale walwal weyn oo Imaaraadka wajahaya. waxa ay leeyihiin khubarada dhaqaalaha tani waxa ay si daran u saameyn doontaa dhaqaalaha Imaaraadka Carabta, iyadoo hore weeraradii hore ee 40 cisho Iiraan ku socday weerarada Imaaraadkana in ka badan 2,000 oo gantaal lagu dhuftay iyo drones. waxa ay keentay maalgashiyaasha inay ka guuraan, ay ka baqaan kuwa kale inay maalgashtaan. si kastaba ha noqotee xalay Imaaraadka waxa ku dhacay droneski ugu badnaa iyo gantaaladii ugu badnaa ee Imaaraadka lagu dhufto tan intii أو دجال كسور رجال عليي. بحرين وحي كم تاي مالها أجلعن أو لأركي جنتالة إيران أو أي جبين قيبة كم ذا مجالوين كدلك بحرين وعلى أركي حرون ميليتري أو أي ليهن عظمة بحرين لما جرني صوبت إيران أي أوبكستي حرون أي ليهن عظمة ميليتري بحرين أو حالي جبنيسي ساك مركلي وعلى أركي درونسكي جنتالة إيران أو كل عيا دلك بحرين. دولة بحرين ayaa lagu waramayaa in ay kaalmo ka hesho iyo taageero xaaladu malkay sidaan oo kala noqoto dawladda Sacuudiga. laakiin hadda Sacuudiga ayaa isagu mar kale la daala dhacaya sidii uu la dagaalami lahaa ama iskaga qaban lahaa xulufalahan Xuutiga oo haysta gantaalada ridada dheer aadna iskugu dhow yihiin. lama garanayo waxa ay fali doonto dawladda Bahrain. Iiraan mar kale waxay ku celisay baaqeeda ah dalalka doonaya inay ka nabad galaan gantaalada iyo duqeynta Iiraan in ay xiraan saldhigyada Mareykanka oo ku leeyahay bariga dhexe. waayahay saaxiibada qiimiga leh qodobka xiga barnaamijka. Trump ayaa sheegay isbuuca soo socda waraysi uu xalay siiyay horta Trump wuxuu uga hadlay meelo kala duwan. diiradda wuxuu saaray Iiraan, wuxuu saaray wadahadaladii. horta wadahadaladii wuxuu sheegay Iiraan inay balan lahayn waa sidii isagu u leeyahay. ballamadii oo dhan way nooga baxeen buu dhahay. laakiin khubarada arrimahan ka hadlo sida Channel 4 oo kale qabiir laga waraysto wuxuu sheegay taas cagsigeed inay jirto. waan u imaan doonaa. laakiin muxuu Trump ka yiri Iiraan iyo xiisadaha socda? Trump wuxuu leeyahay xalay si daran baan u duqeynay Iiraan, burbur ballaaran baan gaarsiinay. laakiin wuxuu leeyahay isbuuca soo socdo hadda wariyaha Fox News buu u waramay wuxuu yiri waxaan ka burburin doonaa kaabayaasha dhaqaalaha. haddii Iiraan kaabayaasha dhaqaalaha laga burburiyo shaki la'aan iyaduna waxay beegsan doontaa kaabayaasha dhaqaalaha ciidamada Mareykanka bariga dhexe ku leeyihiin dalalka qaliijka ee saaxiibka la ah Mareykanka. waxa sidoo kale ay tilmaamayaan dadka arrimahan ka hadlo in Iiraan ay sidoo kale beegsan doonto Israa'iil kaabayaasha dhaqaalaha. dagaalkan uu noqon doono dagaal furan. waa kana Donald Trump oo ku hanjabaya isbuuca soo socda inuu yahay isbuuca ugu xun ee Iiraan soo maray. ila daawo. I'll save the energy targets for last, but ultimately we'll hit energy targets, yeah. But we're going to hit them very hard tonight. We're going to hit them very hard tomorrow night. We're going to hit them very hard the night after. And then next week it gets really bad for them because next week comes the power plants. Next week comes the bridges. We're going to knock out all their power plants. We're going to knock out all their bridges unless they get to the table and negotiate. Do you believe the Iranians are serious about making a deal? I think they have no choice. Trump waxa uu yiri habeen dambe caawa habeen ku xiga si daran ayaan u garaaci doonaa. meelaha halis ayaan ka garaaci doonaa Iiraan. waxa uu sidoo kale sheegay madaxweyne Trump in ay garaaci doonaan kaabayaasha dhaqaalaha Iiraan. waxa uu yiri waxaan burburin doonaa buundiyaashooda ama bridgeskooda.
waxaan ka garaaci doonaa korontada keedka korontada taas oo macnaheedu ay tahay in Mareykanku uu ku hanjabayo in weerar aan waxba la reeban doonin uu ku qaadi doono wariyii ayaa weydii waxa uu yiri ma u malaynaysaa Iran in wada hadallo dhab ah ay u imaan doonto waayo Trump isaga yiri waan garaaci doonaa kaabayaasha dhaqaalaha ayaanu ka burburin doonaa ilaa iyo miiska ay wada hadallada ka imanayaan miiska wada hadallada laakiin wariyii markuu weydii Iran ma yeeli doontaa sida wuxuu yiri Trump ma haystaan wax kale Joyce kale ma haystaan dooq kale ma lahan doorasho kale ma lahan waayahay saaxiibada qiimiga lahow arrintu markaa meesha ay marayso waxaa la weysweydiiyey dood waxaa fronte ah maxaa dhacay ilaan wada hadallada la galay heshiis muddo ay socday Pakistan iyo Qatar iyo dawlado kale ay ka shaqeeyeen baa socday maxaa hal mar bedelay Trump oo hal mar isu bedelay waxa arinta wax ka laga weydiiyay qabiir Channel 4 ee Britain u fadhigiisa yahay ayaa wax ka weydiiyay waxay ku soo koobayaan oo ay leeyihiin oo kula wadaagi doona Trump dhiilkii baa la xumaaday heshiiskii Iran 14 qodob Iran guul weyn bay u ahayd gudaha Mareykanka waa lagu dhaleelay Trump waxa la dhahay dhiilkii ugu liita ayuu qaatay bal ila daawo Channel 4 arinta ka hadlaya It seems to me that Trump has worked out that he negotiated a bad deal and a deal that was always ambiguous and was always bound to lead to some sort of misunderstanding. And perhaps it sort of annoyed him because, you know, it was clear that Iran was always going to see that memorandum of understanding as giving it de facto control of traffic through the strait. The memorandum was vague, but it did say Iran should take steps to administer the free flow of traffic. Now, it didn't say, you know... and then after 60 days, should come up with Oman with a method, which you could say implicitly gave the Iranians what they wanted, which was the ability to get a proper status for this authority that would regulate the traffic through the strait. So, in that sense, it looked like a win for them. Yes, and obviously all of this is about where the two sides are when it comes to the next stage of the negotiations. And the Iranians know that if there is an alternative route through the Strait of Hormuz, they have lost... kaasi waxa waa qabiir reer Britain oo arrimaha difaaca iyo sirdoonka wax badan laga weydiyo waxa uu sheegay in Iran guul u ahayd in loo ogolaaday controlka iyo maamulka inay iyada gacanta u gasho tiiba Trump la xumaatay baa la leeyahay kadibna sheekada dagaalkii dib u soo celiyay waayahay saaxiibada qiimiga loo qodobka ugu dambeeya barnaamijka waxaynu ku soo xireynaa ciidamada ilaalada kacaanka Iran ayaa ugu yeeray dawladda Jordan si gaar ah inay degdeg uga saarto Mareykanka dalkeeda xirtana saldhigyada uu ku leeyahay bariga dhexe waxaa sii xoogaysanaya duqeymada Iran ay ku wado dalalka bariga dhexe waxana lagu waramayaa meelaha sida gaarka loo beegsanaya inay tahay dalka Jordan lama garanayo sababta Jordan ay u beegsanayso laakiin waxa la leeyahay Iran ciidankeeda iyo qubradeeda qiimeynta ay sameeyaan waxay saldhig uga dhigaan meelaha weerarada ugu badan ay ka yimaadaan waxa la xasuustaa dagaalkii hore inta heshiiska aan la galnay MOU-ga ama is-afgaradka waxay duqeynta ugu badan Iran ku dhufanayeen Imaaraadka laakiin hadda waxa leeyahay Jordan ayaa noqday bartilmaameedka ugu weyn Iran laba dal hadda ugu daran waa Bahrain iyo Jordan wali kama soo jawaabin baaqan iyo fursadan Iran ay siisay Iran waxay leedahay Jordan haday rabto inay sii jirto oo ay badbaado waa in degdeg ay Mareykanka saldhigyada uga rartaa dalkeeda uga rartaa saldhigyada Mareykanka Jordan marka waxay leeyihiin qubrada arrimahan ka hadla hal fursad bay haysataa in Mareykan Israel intay nidaamyada difaaca soo qaadaan Jordan keenan oo drones iyo gantaalada looga difaacaya Jordan duqeynta Iran waa inay noqdaan kuwa loo keenay system difaac taas ma suurtagelaysaa maya sababtu waxa lagu sheegayaa weerarka iyo difaaca waxa raqiis ah ama qiimihiisu yar yahay weerarka halkii mar oo nidaam difaac la activate gareeyo oo lagu difaacaya lacag badan baa baxayso malaayiin ay u baahan tahay difaaca mar rabaan Mareykan Israel in malaayiin ay ku bixiyaan Jordan iyo dalal